madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ka qayb galay shirweynaha golaha dhexe xisbiga Kulmiye ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday inuu ka tanaasulo musharaxnimada xisbiga Kulmiye ee doorashada 2017 madaxweyne Silaanyo amuurahaasi ka hadlayana waxa uu yiri kaasoo kalsoonida lagu qabo iyo taageerada loo hayo toona aanay isdirin sida ay leexayaan dastuurka iyo shuruucda dalku waxaan xaq u leeyahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago shaqada madaxweynaha dalka hase yeeshee waxaan si rasmi maanta u caddaynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga Kulmiye inaan dhammaan shacweynaha Soomaaliland إن اختيار كي أوجدها نازلي من المركز الله توصل الأول وحضور اليوم فحتى صبر قانون حكومة اليوم سياسية هي صاحبة ليس لها على سبق وبلغتي وسجعلكم وعدنا على الله وقامين ويقامية كستا وحضور مدينة كجدلو وقامين تطلق كدول سنة أيضا حولياشي وهي سوالا تغيك إجرين سامي أمور سأنا لما يسرون لطلع يبقى حلقاك المدادة اللي يكسر السنة وحندور بدي إنا وحدة معقية دون الشركة الصوصرة إسلامك عن المطلوب إذا يكون وجهها ولها سبيل خارج القاهرة حزب الكلية ترك كل حساب وحقامك حكومتي برنامج حزب الكلية عبد الشكور هيبي سومالي نيوز تيفي مقالة هرقيسة.